sigaarku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu halista badan dunida oo dhan. waa sun aan laga qarinin xataa qofkii isticmaalaya oo baakad walba oo sigaar ku jira waxaa korkiisa lagu qoray tubaakadu waxay waxyeelaysaa caafimaadkaaga. sanad walba dad tiradiisu kor u dhaafayso 7 milyan oo qof ayaa u geeriyooda xanuuno laga qaado sigaarka iyo waxyaabaha kale ee la dhuuqo ee tubaakada ah. waxaa laga qaadaa xanuuno aad u badan oo aan halkan lagu soo koobi karin sida kansarka wadnaha oo howlgab noqda, sonkorowga iyo xanuuno halisa oo googooya sanbabada. sida ay sheegtay xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee CDC, dalka Mareykanka oo kaliya sanad walba waxaa xanuunada sigaarka laga qaado u geeriyooda 480,000 oo qof. warbixinta ayaa lagu sheegay in 40,000 oo qof oo dadka ka mid ay yihiin dad aan sigaarka cabin, hase ahaatee ay yihiin dadka lagu agcabo ee loo yaqaano second hand smokers. 10 dal ee adduunka ugu sigaar cabka badani waxay kala yihiin: kaalinta koowaad waxaa ku jira dalka Serbia, kaalinta labaad Bulgaria, kaalinta saddexaad Greega, kaalinta afraad Ruushka, kaalinta shanaad Moldova, kaalinta lixaad Ukraine, kaalinta toddobaad Slovenia, kaalinta sideedaad Bosnia, kaalinta sagaalaad Belarus iyo kaalinta tobnaad oo ku jira wadanka Montenegro. dunida oo dhanna waxaa sigaarka dhuuqa dad tiradiisu gaadhayso 1.45 milyan oo qof. marka laga soo tago dhinaca caafimaadka, sigaarku wuxuu waxyeello weyn ku hayaa dhaqaalaha dunida oo sanad walba waxaa sigaar lagu cabaa lacag bilaayin dollar ah. dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay dalalka ay dadkiisu cabaan sigaarka iyo noocyada kale ee waxyaabaha tubaakada ah ee la isticmaalo. khubaro dhinaca caafimaadka ayaa qabta in Soomaaliya ay sanadihii dambe aad u korodhay cabidda shiishada oo hadda ay isticmaalaan dad aad u badan oo rag iyo dumarba leh, halka markii hore sigaar cabidda badanaa lagu yaqaanay dhinaca Soomaalida ragga oo kaliya oo ay dumarku aad ugu yaraayeen. Professor Ismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo wareysi siiyay TV-ga BBC Somali sanadkii hore ayaa sheegay in sigaarku uu khatar weyn ku yahay nolosha aadanaha, waxaana uu doctorku tirinayaa xanuunada halista ah ee uu sigaarku keeno. saameyn caafimaad xoogan buu ku leeyahay meel kasta dhinac kasta oo organskeena ama xubnaheena jirkeena ka mid ah. sanadkan waxaa diiradda la saaray dhibaatada weyn uu keeno waxa la yiraahdo wadnaha iyo xididaha. marka halkaas uu keeno 35% inuu keeno wadnaha iyo xididaha dhibaatada u keeno, gaar ahaan inuu sababo wadnaho istaaga iyo stroke ama xididada maskaxda uu maaragtay uu xiro, halkaas stroke uu ka dhasho wax la yiraahdo midig saas u dhacaan. sidoo kale wuxuu dhibaateeyaa xididaha banaanka oo dhibaato weyn u keena uu xiraa. wuxuu ku leeyahay saameyn kale dhinacan neef mareenka, gaar ahaan asoo sababa 25% ilaa 30 kansarka loo yaqaan kansarka ku dhaca sanbabka. sidoo kale wuxuu sababaa wax la COPD ama neef mareenka dhibaatada u keeno oo adkaada chronic bronchitis wax la yiraahdo iyo emphysema oo sanbabka adkaada ama weynaada. sidoo kale waxaa la ogaaday haddii awil labadaas ahaan jireen inuu meelo badan saameyn ku leeyahay, weliba la ogaaday in uu kansar goobo badan uu ku dhaco inuu keeno. sideedana waxaa la sheegaa sigaarka in maadooyin badan oo khatar ay ku jiraan ay ka mid yihiin ilaa 4,000 baa la sheegaa, 250 oo kuwa dadka bani'aadamka dhibaateeyo, in ka badan 50 waa inta kansarka keenta. kansarka marka ugu badan hadda oo la sheego midka sababka ka sokow waxaa la sheegay midka ku dhaca hunguri wadeenka, caloosha, beerka, dheefshiidka, keliyaha, qanjirgeedka la yiraahdo prostatka, kaadihaysta, dhinaca haweenkana uutaraha ama ilmagaleenka. wuxuu sababaa baa la yiraahdaa ilmo la-aan inuu sababa ragga haweenkaba, gaar ahaan ragga wuxuu u keenaa 85% wuxuu sababaa caninimo. taasna waa mid la sheegay. tan kale oo ku leeyahay kansaradaas ka sokow inuu ku leeyahay dhinacan kale aragga iyo maqalka iyo iyagan wuxuu ku leeyahay dhibaatooyin weyn buu u keenaa oo uu yareeya ama uu aragga taa yareeya. tan kale dubnaha uu dhibaateeya, wuxuu dhibaateeyaa ilkaha iyo ciridka weliba wuu baabi'iyaa, kadibna waxaa ilkaha soo hoobta oo soo daata.
marka waa dhibaatooyinka ugu waaweyn oo weliba maanta yani sida looga walwalsan yahay ay tahay maaragtay si aad khatar u ah. midda kale dhibaatada haweenka uurka leh caruurta markii laga hadlo haweenka uurka leh yani amaan ha noqoto si toos iyadoo cabaysa ama noqoto guriga lagu cabaaye waxaa dhaca in yani ilmaha ay dhicisto inay dhasho ilmo miisaankooda hooseeyo in muxuu ahay to cunugii neefqabad soo la dhalan karo inuu hore yani dhimasho degdeg u sababi karayo yani waa waxyaabaha maaragtay midda muhiimka haddana culayska la saarayo waxay tahay middan gacanta labaad lagu cabaayo ama sida dadban oo weliba goobaha badan iyo waxyaabaha badan lagu cabaayo in yani khatarta ugu weyn maanta oo laga hadlayo ay tahay midda tooska ka sokow. waxaa jira dadaallo xoogan oo dunida oo dhan ay ugu jirto sidii loo yareyn lahaa ama loo cidhibtiri lahaa sigaarka hase ahaatee wax guula lagama gaadhin oo sannadihii dambe waxaa sii kordhaya dadka sigaarka isticmaala iyo waxyaabaha kale ee tubaakada ah oo ay shiishadu ka mid tahay.